waxaanu ka keennay laascaanood maanta taadna tirahdeen way idiin hiloobeen nabadaasay idinla jecel yihiin way noo dhiibeen wax walba dhulkaan dhigaynaa bay yidhaahdaan sidaad noo tirahdeen idinka iyo iyagaba waxaan ilaahay uga baryaynaa inaynu nabadda aan makansanno oon qaadanno oo dhulkaasi siduu ahaan jiray oo aroos iyo wanaag iyo ganacsi intaba uu bilaabmo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin culamaa diinka iyaguna mar walba wacdiga iyo wanaagga iyo baraarujinta labada dhinacba wada idinkana ilaahay khayr ha idin siiyo miisaanka xasanaadka ha idin siiyo madax iyo maaragtay hoggaan dhaqanba waxaad naga gaarsiinaysaan inaan idin aqbalay oon idin ogolaanay mahad badanna waan idiin soo jeedinaynaa waxaan leenahay waa waddadii ugu fiicnayd waa dadaalkii ugu wanaagsanaa waxaan taa u aragnaa xukuumadda maanta dhisan inay taa xukuumad u dhaqaaqday islaax wanaag iyo dadka inay midayso aad iyo aad baan ugu mahadnaq khayran kolley waxa loo socdaa waa hawl wanaag ku jiro wanaagga haddii ilaahay ka dhiga ilaahay hayna la garab galo innaguna waxa weeye haynu u noqonno dhibta iyo waxay naga gaadha haynu mar walba ugu dulqaadanno biidni illaahi tacaala hadday madaxweynaha tahay iyo hadday dowladda tahay iyo hadday madaxdhaqameedka tahayba waa ka diyaar oo waa la qaatay farsamadii baa inoo hadhay farsamada aana ka hadhi maysaan idinku badaadihin doona dowlad deegaankana unu mahadnaqaynaa waxaan idiin sheegaynaa insha allahu tacaala inaanu qaadanay nabad ku qaadanay sida ugu wanaagsan ugu baaqayno walaaladayada kale insha allahu tacaala inayna qaataan iyaguna ay ku mahadsan yihiin maadaama ay noo soo gudbeen ay qaataan nabadduna ay tahay waxa maanta aan ku islaaxina dhammaanteenba xaggayaga anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka somalilan marka labaad waa nabad marka saddexaadna waa nabad waxaanu ogeysiinaynaa adduunyada ama caalamkaba geeska africa ciddii khusaysa ee danaysa howlaha kan mustafe madaxweynaha kilarka shanaad iyo dowladdiisa oo isaguna si gaara isaga xil saaray inaanu nabad doonayno oo aanu nabad doonayno oo aanu nabad doonayno nabaddaas qiimaheedu aada iyo aada iyo aada buu noogu wen yahay intiina ka shaqaynaysana waa abaalkeeda xagga ilaahayna waa ka leedihi